qaybta akhriska marka mar waliba wax akhri maxaad akhrinaysaa anything oo luqadda ingiriis ku qoran waxyaabaha aad ku xasuusto waxaa ka mid ah waagayga hore luqadda anigu aan baranayay akhriska waan ku falnaa actually haddii markaan usoo xasuustana sirtii guushayda luqadda gaar ahaan inaan ku hadlo oo dadkii ila midka ahaa ama ardaydii aan wada joognay ama macallimiintii aan uga fiicnaado dhanka hadalka kadibna noloshayda qayb weyn ka noqotay runtii guusha ganacsiga iyo guusha shirkadaha iyo consultingka markaan ku jiray iyo qaybahaasoo dhan waxaa qayb ka ahaa akhriska waxaan akhrin jiray joornaal waliba oo waddada aan ku arko waxaan xasuustaa inaan soo gadan jiray nus kiilo iyo kiilo joornaalkii la dhihi jiray Gulf News ee kasoo bixi jiray imaaraadka intaan soo gato ayaan page u akhrin jiray erey kastoo iga hor yimaadana intaan xariiqtimeeyo ayaan dictionary ka raadin jiray kadibna jumladaan gelin jiray now akhriskaas muxuu kuu sahlayaa mataqaana ereyga waxaad ku baranaysaa isagoo jumlad ku jira so already ereygani waad baratay jumlad isa saaran oo nidaamsanna maskaxdaada way duubaysaa